shirweynaha qaran ee horumarinta kalluumaysiga oo maalintii shalay ka furmay magaalada Hargeysa ayaa maanta waxa uu galay maalintii labaad iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay dood cilmiyeedyo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa ka faa'iideysiga kalluunka iyo sidoo kale caqabadaha ku gadaaman kalluunka iyo kalluumaysatada waxaana doodahaasi ka qayb galay dad kala duwan oo aqoon u leh arrimaha kalluunka iyadoo oo bulshadii iyo mas'uuliyiintii madasha shirkaasi ku sugnaa maanta ay su'aalo ku saabsan amurahaasi ay halkaasi ku weydiiyeen gelinkii dambe ee maanta ayaa shirkaasi si rasmi loo soo gabagabeeyay waxaana ka qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada oo markaasi goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland wasiirka wasaaradda horumarinta kalluumaysiga wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo mas'uuliyiin kale oo madasha gabagabada shirka horumarinta kalluumaysiga ka hadlay ayaa hadaladoodii waxa kamid ahaa ujeedkii shirka loo qabtay oo ahaa in la weereeyo talooyinka iyo tusaalaha ka imanaya daneeyayaasha arrimaha kalluunka ha noqoto hay'adaha maxalliga ha noqoto hay'adaha dawladda ha noqoto dadka shicibka ah ee ka ganacsada kalluunka dadka shicibka ah ee soo saara kalluunka waxaanu arkaynay waxaan filayaa halkan intii ay joogteenba labadii cishay marka wada joognay in idinka laftigiinu aydan aad uga faa'iideen waxyaabo badan oo badda xiriira waayo kalluumaysatadii badda waxay ka dhawaajinayeen dhibaatooyin iyo marxalado la soo dirsa waqtiyada ay ku jiraan kalluumaysiga ama badda sanadkan aynu ku jirro bilihii January ilaa June waxaynu dibadda ka keennay inagu aynu ka soo iibsanay 8,000 oo tan oo fresh fish ah waxaan kala soo iibsanay 1,030,000 oo kiilo oo kalluun qasaacadaysan haddii tan loo bedelo qiyaastii wuxuu noqonayaa 1,030 tan oo kalluuna oo qasaacadaysan baynu muddo 6 bilood oo kaliya ku soo iibsanay taas waa isbarbardhigga innaka iyo wadamada jaarkeena iyo caalamka haddii doonida 4 qof ay saaran yihiin ay 6 casho ku maqnaato badda ama 5 casho imika waxa laga yaabaa inay soo xirayso 500 ilaa 700 oo kiilo oo kalluuna hadday 3 jeer bishii baxdo ugu yaraan 1,500 oo kiilo bay soo xiraynaysaa haddaad 2 ku dhifato waa $3,000 bishii haddaad tidhaahdaba qofka maal gashaday nus buu qaadanayaa shaqaaluhuna nus bay qaadanayaan qofkii shaqaalaha waxa ku soo beegmaya $375 qiyaastii waana ka badan kartaa waa minimum laga yaabaa $375 ilaa $500 bishii qofku inuu helo inanka jaamacadda ka soo baxay maanta ee shaqo dawladda ka bilaaba ee A grade ku bilaaba mushaharkiisa basiga markaan gunada lagu darin waa $100 marka $100 iyo $500 farq weyn baa u dhexeeya rasmi u soo xuraynaa waynu soo gabagabaynaynaa shirweynihii horumarinta kalluumaysiga heer qaran oo maalintii shalay ahayd oo halkan madaxweynaha qaranku inooga daafuray shirkan oo qaatay muddo 2 maalmooda waxaa ku kulmay isugu yimi guud ahaan badaneeyaasha kalluumaysiga iyo bahwadaagtooda waxaa halkan laga soo jeediyey macluumaad iyo xogo badan iyo daraasado muddo la soo